Cabdi Munamandeeq oo ka mid ah saxafiyiinta gobolka Sool ahna dadka u dooda xuquuqda haweenka ayaa saaka hoyga ay ka degan tahay magaalada Laascaanood ku qabatay shir saxaafadeed ay kaga hadlayso tacdiga iyo dhibaatada lagu hayo saxafiyiinta Laascaanood ka howlgala. Dhanka kale marwada ayaa sheegtay in qofna aan xorriyadiisa laga qaadi karin iyadoo sifo sharciya loo marin. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta shir saxaafadeedkan waxaan u qabtay laba arrimood oo ay koob ka tahay tacadiga iyo dhibaatada lagu hayo saxafiyiinta reer Sool. Inta badan deegaanka Soomaalida saxafiyiintu waa joogan. Saxafi la jirdilo, saxafi la iska xiro, saxafi aan loo soo marin sifo sharciya ama jiro aan ahayn kuwa Laascaanood. Soomaaliland waxay caadaysatay ama caado ka dhigatay in saxaafadda gobolka Sool ay saartay cadaadis inay bulshada u gudbin xaqiiqo in iyagu waxay jecel yihiin oo kaliya la soo daayo. Laascaanood waa ogsoonahay Soomaaliland baa joogta oo cidna kama qarsano, laakiin Soomaaliland waxay jecel yihiin anagu inaan soo deeno bulshada iyadu nagama qabato, shaqadeedana iyo saxaafadana nagama qabato. Sanadkan gudihiisa 4 saxafi baa la xiray, hadda ugu dambeeyay saxafi baa xiran, waxa la wuxuu ku xiray ma jirto. Saxafigu dadka aragtidooda buu soo gudbiyaa. Qofka saxafiga ah wuxuu matalayaa bulshada. Saxafigu qabiil maaha, reer maaha, qabiil uu ka dhashay laakiin qabiilkiisa ma matalo. bulshada Soomaaliyeed buu u shaqeynayaa wixii bulshada dan u ah oo dan u arko bulshadana doonayso ayuu soo bandhigi karaa, laakiin qof wuxuu soo gaar rabo lama soo bandhigi karo. qof aragtidiisa meel kale ku tidaysan karaa. saxafiyiinta gobolka Sool inta badan waxa lagu haystaa inay Soomaaliland ay rabto in la sii daayo, taasina maaha mid sharci ah. Soomaaliland saxafiyiinta waxay ku maamushaa waxa weeyaan anshaxa aad wada jeedaan bay ku maamushaa. kaas waxa ku qoran saxafigu inuu xor u yahay inuu bulshadiisa la wadaago aragtida dadweynaha. saxafiga waxyaabaha ka reeban oo lagu xuri karo ama uu ku mudan karo xarig waxa kamid ah inuu diinta Islaamka faraha la soo galo, inuu ka hor dhaco xukun maxkamad ka socda oo iyadan garsoorka bisheegin uu sii faafiyo ama bulshada la wadaago, taasoo kale uu ku mutaysan kara xarig. saxafi faraha kula jira dambi aan xiri karaa, laakiin saxafi aragtidiisa iyo tid bulshada soo gudbinaya lama xiri karo. saxafiga bulshada wuxuu u sidaa xasaanad, wuxuu ahaa mas'uul bulshada wakiilatay. inta badan saxafiyiinta aragtidooda ma cabiraan, laakiin aragtida dadweynaha bay cabiraan. saxafiyiinta Sool aragtidooda iyo aragtida dadweynaha way soo bandhigaan. haddaba maxay tahay sababta ay saxafiyiinta Sool uga duwan yihiin saxafiyiinta kale oo si gaar ah loogu eegtaa? anagu waxaan aaminsanahay in gobolka Sool horta uu yahay gobol maamulo badan ka dhaxeeya, taasina ay cadaadis nagu tahay ama dhib nagu tahay in maalin walba aan la kulano hanjabaad, tacadi iyo xarig in la kulano. saxafiga waxyaabaha anshaxa uu sheegayo oo qodobka 13 uu sheegayo waxa kamid ah saxafigu inuu bulshada u gudbin karo war aan la faafreebin. ninka siyaasiga war buu jecel yahay, madax dhaqameedku war buu jecel yahay, bulshada war bay jeceshahay, adigu war baad jeceshahay. intaas hore inta ka timaadid bulshada waxay jeceshahay sida haddaan uu xida hebel baa u tiideynaya warkiisa ama hebel baa wixii soo diran u tiideynaya, taas anshaxa saxaafadda ma anaguna war aan faafreebno ma sideeno, war dheelitiran oo dhammaystiran baan bulshada la wadaagna. haddii taana la ku haysto oo leeyahay ma sideyn kartaan daadarto tan la ku yimaado hal ma sideyn kartaan saxaafadda ka fadhiisto. anagu gobolka Sool ka ahaan saxafiyiinta intaan noolahay war la faafreebo iyo wax la kala qariyo ma sideynano. Laascaanood xaqada dhabta ah oo taala bulshooyinka joogta iyo saxafiyiinta waa ogyihiin, laakiin anagu waxaan u danaynaa oo door bidnaa inaan bulshadayada aanan ku keenin dib u dhac iyo horumar la'aan, laakiin xaqiiqada jirta haddii la doonayo in la arko waanu soo bandhigi karnaa. Soomaaliland meeshan waxay ku hayso iyo meeshan si u maamusho bulshada way ogtahay, saxafiyiintuna way ogtahay, laakiin anagu indhaha waanu ka qarsanaa. waxaan u danaynaa bulshadayada nagama qabato marka Soomaaliland inaan ka saka xidho ama ay xarig nagu cadiisato. ugu dambeyn maamulka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa haddii ay joojin waayaan dhibaatada iyo caqabadaha iyo jirdilka ay ku hayaan Soomaaliland. inta badan waxaad ugu maqasheen barnaamij la dhaho Mandeeq maxaa cusub, waxaan soo saari doonaa barnaamij aan ugu magac daray saxafiyiinta Sool iyo Soomaaliland. wabillahi tawfiiq.